waxaa lagu tilmaamay inay tahay wejiga xaragada ee 2017 waa gabadha Soomaaliyeed ee haysata dhalashada Mareykanka Xaliimo Aadan oo dharka xayeysiisa waa wax cusub inay xijaabkeeda ku laafiyooto golayaasha xaragada ee caalamka sanado ka hor ayay u tartantay koobka xaragada ee Minnesota 6 bilood kadibna Milan ayay wacdara ka dhigtay magaalada tan London ayay ugu warantay telefishinka BBC Soomaaliya waxa igu kalifay inta maaro noqdo maxay ahayd markastaba maqlo Soomaali dadkan marka newska ka arko waxun like laga sheegaa soo maxaa rabaa adduunyada inta aragto inta dad fiican ahna dad sharaf leh inta ahna dad oo wanaagsan inta ahna soo dhaqankayga rabaa inta si sharaf leh u soo bixiyo Halima was the first Muslim homecoming queen. maxaa isdaha hadicin dadkaada ha ceebaanin because maxaa rabaa inta si fiican u socdo si like gabartan dhacaysa gabar Soomaali waa marib inta dadka ay dhahaan dadkayga way support gareen way garab qabteen maalin kastaba waa ku farxaa because jacayl iyo waji fiican ay soo tusiyeen hada ku adkaatid beliefs kaada qof oo ka bedelay ma jirto so ani every time shaqo cusub aado mise meel iga waco waa u sheegaa dharkana xiran karaa wax su'aal ma gashan kari wax oo qaawan ma xiran kari wax jirkayga muujinayo ma suubin kari and dadka oo ila bisay dumar intay noqdaan waaye so waxaas waa ku adag yahay maxaa dhihi lahaa xijaabkaada ku adko hada gabar markii hore xijaabeen hada ahayd because gabdhaheena yaryar intay arkaan waa dumarkan oo wali wax suubinayo oo laakiin wali isqaawinin xijaabka hada u macaanaysidna ajra ka helaysaa so waligaa ku adko dhaqankaada iyo dadkaada ha ceebaanin so markastaba meel cusub aadaysid si sharaf leh dadka like uwaani